hodantinimada iyo faqrigu labaduba marka hore waa imtixaan. Qofka qaniga ahna waxaa la eegayaa bal waxa uu ku sameeyo xoolaha Ilaahay siiyey. Kan faqiirka ahna waxaa la eegayaa bal inuu ku samreeyo in kale. Waxaa kale oo in la tilmaamo mudan in kala qaybsanaantu ay dadku u kala qaybsan yihiin qani iyo faqiir ay xigmadi ku jirto, oo haddii dadka oo dhammi qani wada ahaan lahaayeen ama faqiir, noloshuba micno ma yeelateen. Iyadoo ay sidaasi tahay ayaa haddana in la xuso mudan in qof waliba oo xurriyad buuxda u haysto inuu faqiir noqdo iyo inuu qani noqdo. Maxaa yeelay dariiqa faqrigana waa mid cad oo sababihiisa wata, dariiqa qaninimadana waa mid muuqda oo asbaabihiisa wata. Haddaba daawadayaal, waxaan maanta halkan idinkugu soo gudbinayaa 7 qodob oo ka hortaagan inaad noqoto qof qani ah ama dhaqaale badan sameeya. Hami sare ma lihid. Higsigaaga haddii uu hooseeyo, garashadaaduna waa ay hooseysaa, waxqabadkaaguna waa uu hooseeyaa. Fikrad fiican fulinteeduna uma dhaqaaqdid. Maxaa yeelay taasi waxay u baahan tahay hami sare. Hamigaasna ma aha mid adiga kugu jiro. inaad guul daraasato ayaad ka baqdaa. Daawadaha qiimaha leh miyaanad ogeyn markaad dunidan ku soo biiraysa inaad ka soo baxday hooyada caloosheeda, oo waqtiga aad soo bixayso uu ahaa marxalad cabsi badan oo xasaasi ah, wax kasta inay dhacaanna ay suurtagal ahay. Haddaba waxaan oran karnaa imaatinka dunida ayaa ku bilaabmay khatar iyo biimo. degdeg inaad qani ku noqoto ayaad rabtaa. wax kasta waxaad rabtaa inaad degdeg ku hesho, inaad degdeg qani ku noqoto, inaad degdeg wax ku barato, inaad degdeg caan u noqoto. markay degdeg wax kugu qabsoomi waayaanna waad niyad jabtaa, wax kastaana meeshooda ayaad uga dhaqaaqdaa. naftaada kuma kalsoonid. kalsooni la'aantu waxay taraanturo ku tahay guulgaaristaada. marka aad naftaada kalsooni ku qabi weydo, adiga ayaa dadka u dhiibay risaasta ay kugu dili lahaayeen. rajo aan ficil lahayn. waxaad dhahdaa waxaasaan samaynaa, ganacsigaasaan abuuraa, laakiin wax ficila ma samaysid. waxaadna la mid tahay qof raba inuu goosto midho laakiinse aan ba abuurin geedkii. mas-uuliyadda mustaqbalkaaga iyo midda naftaadaba ma qaadid. dadka qaniga ahi waa dad iyaga iswada oo mas-uuliyadda naftooda qaaday, oo aanan cidna u daba fadhiisan. yool cad ma lihid. waad iska nooshahay oo ma taqaanid waxaad u nooshahay iyo meeshaad u socoto. sababaha inta badan keena in qofka aan waqtigiisa ka faa'iidaysan ama uusan helin xamaasad uu wax ku qabto waa yool la'aanta.